dhul daaqsimeedku waa deegaanka ay ku nool yihiin xooluhuna waa lafdhabarta bulshada Soomaaliland. halkani waa dhul daaqsimeedka Balle Abokor oo ay daaqaan xoolo aad u tiro badan oo laga soo daaqeeyo tuulooyinka Jaamac Liibaan, Gumburta iyo Beeleeday oo dhul daaqsimeedkani ku dhex yaalo oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka Togdheer. qaar ka mid ah bulshada ayaa isku dayay inay deegaameen cusub iyo tuulo ka sameeyaan dhul daaqsimeedkaasi, hase yeeshee maamulka degmada Burco oo kaashanaya ciidamada nabadgelyada Togdheer oo ka hortagaya deegaamayntaasi cusub iyo nabadgelyo darro ka dhalata halkaasi waxay baabi'iyeen deegaamayntaasi laga yagleelay deegaanka Balle Abokor. sidoo kalena dadkii deegaamayntaasi waday waxa dib loogu celiyay tuulooyinkii ay horay uga soo guureen. meeyarka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, xildhibaan Axmed Cabdi Dhimbiil iyo xildhibaan Ibraahim Jaamac Basaale Gaboobe oo hawshani waday ayaa ka warbixiyay sida ay ugu hortagayaan in la magaaleeyo deegaanada dhul daaqsimeedka oo ah xoolaha. waxaa halkan aan deegaan maanta ka baabi'inay balligan leeyahay Balle Abokor, deegaan laga deegaameeyay meherado, guriyo, barkado yaryar wax walba laga sameeyay baan halkan maanta ka burburinay oo dadkii deganaa baabuurkaas baan u kireynay, tuulooyinka doonayeen baanu geynay. lama ogola meelaan deegaan hore ahayn deegaan cusub laga sameeyo lama ogola. sidaa awgeed waxaan halkan uga digaynaa ciddii niyadda ku haysay in intay meel degto cidlo ah dabeedna ay deegaan u noqon doonto ayaanu halkan uga digaynaa. waad arkaysaan waxa ay magaalooyinka iyo waxa dhan aanu rarayna yaaradaanu gubnay saakaba inay tahay sifo sharci darro looga faa'iideystay oo la magaaleeyay dhulkii dhul daaqsimeedka ee xooluhu daaqay dhulka sidan oo kala ah in deegaameynta dhulka laga daayo. waxaynu ku noolnahay waxa la nool neefka xoolaha ee nool baa dalka u shidaala, haddaan neefka la badbaadin dadkuna badbaadi maayo. 4 magaalo ayay u dhaxaysaa, waa meel ama deegaan loogu talagalay in xooluhu ay daaqaan oo ay xoolaha guri xoolaada. sidoo kalena xoolo dhaqatada ku nool deegaankaasi oo u warmay warbaahinta ayaa si weyn ugu mahad celiyay maayirka degmada Burco, xildhibaanada deegaanka iyo ciidamada nabadgelyada Togdheer sida ay uga hortagayaan dhul daaqsimeedkaasi loo bedelayo in la magaaleeyo. meeshan waa meeshii xoolo daaqeenka ahayd ee ka caaganayd magaalooyinka, waxaana ku dhow 4 magaalo oo hareeraha ka xiga oo 4 tubaarigu ka soo hido. waa Gumburlibaax, waa Jaamac Liibaan, waa Haweeye Kalqurun, waa Haweeye Beeleeday. iminka waxaanu ku mahadnaqaynaa dadka magaratada ahi had iyo gooraale manqaado iyo bay ka dhigaan meheradahaasoo dadka xumaynayo ciyaalkii iyo xoolihii lagaga jeestay aakhirkana soo wadata magaalooyin. marka waxaanu u mahadnaqaynaa dawladda barakaysan iyo maamulka naga raraya haddaanu nahay deegaanka erida yaala. waxaanu u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadle marka hore, mar labaadka dawladda naga baabistay meeshii xoolo daaqeenka ee magaalada laga dhigay waanu u mahadnaqaynaa iyagana. laga baabiyay magaaladii haddaan nahay deegaanka shacabka ee deegaanka xoolaha waan ku raacsanahay sidaa ay bulshada waan ku raacsanahay anaa karaale waxay meel xoolo loo daaqaan magaalada deegaanka meeshan la gubay Balle Abokor waa meel deegaan ah daaqsi xoolaad weeyaan oo xoolaha daaqa ka raalli baan ka hayeen dawladdu ku soo baxdo laga baabiyo waayo xoolihii meeshii ay daaqayeen waxay noqotay daaqa tuula laga dhigay. gabagabadiina dadkii halkaasi deegaameynayay markii dib loogu raray tuulooyinkoodii hore waxay ciidamada ammaanku ay gubeen degaladii laga aasaasay deegaameynta cusub. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.